shirkadda Genel Energy ee shidaal baarista ka wada deegaanada gobolada Togdheer iyo sidoo kale gobolka Saraar ayaa waxay deeq biyo u dhammayd 891 booyadood oo biyo ay ku wareejisay mas'uuliyiinta goboladani. munaasabadii lagu wareejinayay deeqdan biyaha ee shirkadda Genel Energy ay ugu tala gashay dadka ay abaaruhu saameeyeen waxa ugu horeyn ka hadlay madaxa guud ee shirkadda Genel Energy ee Somaliland Ibrahim Xasan, madaxa hay'adda Ambicom oo fulinaysa mashruucan Khadar Maxamuud iyo kasmaha waaxda batroolka ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland. waxaa loogu talagalay in biyo dhaamis lagu gaarsiiyo dadka ku nool gobolka Saraar iyo qayb ka mid ah gobolka Togdheer oo hay'adda Genel Energy oo ay iskaashanayaan wasaaradda macdanta iyo tamarta oo ah fulinteedana waxay saaran tahay hay'adda Ambicom inay gaarsiiyaan 99 tuulo isu geyn ahaan. booyadaha halkan ku sugan ee arkaysaan ee maanta biyo dhaamiskeedii la ilaaminayaa waxay ka kooban yihiin 80 booyadood, waxaana loogu talagalay 423 booyadood in la gaarsiiyo dhammaan deegaanada gobolka Saraar ka tirsan ee hay'adda Genel Energy ay ka wada sahaminta. sidaas la midana waxaa la daahfuri doonaa saacada soo socota insha Allah barnaamijkan mid la mid ah oo iyadana lagu gaari doono 520 tuulo oo hoostaga deegaanka gobolka Togdheer khaasatan meelaha Genel Energy gacanta ka geysatay. أنا waxaan ka socdaa shirkadda Genel Energy markii horeysay ma shirkaddu ay wax ku deeqdo oo dhowr jeer horaan arrimahan oo ka qayb galay waxaa la u waaweyn waxa kamid ah warshadii oxygen-ta dhalin jirtay ee waqtigii Covid-ka abaari sanadii hore nagu dhacay iskuulo booyado intaba Genel way keentay iyadoo wax dakhliyo dalka naga soo galaa aanu jirin waxana deegaanku iyo intuu barsaabada labada gobol ee Saraar iyo Togdheer ba ay weydiisteen biyo dhaamiskeena aan ka qayb galno waanu ka ajiibnay imankana gobolkan Togdheer ama guud ahaan badan isku qaada labada gobol waxa la geenayaa in dhan 890 booyadood iyo bacii wax lagu shubanayay intaba waxaan filayaa hadii Ilaahay yiraahdo inay wax ka tari doonaan. shirkaddu hawlo badan bay mataqaanaa oo sahan wadanka ka qabatay mar walbana waa shirkad dareen leh hawlaha mataqaanaa ka socda ama dhibaatooyinka ama xaaladaha lagu jiro. barsaabada gobolada Togdheer iyo Saraar iyo xildhibaan Cabdilaahi Yuusuf ayaa shirkadda Genel Energy uga mahadnaqay damqashada ay u muujisay dadka abaartu saameysay. waan uga mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad shirkadda Genel oo ugu horeeyo madaxa shirkadda Ibrahim oo runtii si wanaagsan uga soo shaqeeyay maantana aan taaganahay qaybintoodii 468 booyadood weeye waxaa la kala geynayaa 54 meelood oo blogii shirkaddu ay ka shaqeynaysay run ahaantii waxa farxad noo ah maanta inaanu goobjoog ka ahano 423 booyadood ama goobood oo lagu wareejinayo biyahoodii oo runtii ay ka qayb qaateen ay soo bixisay shirkadda Genel oo runtii qarankan iyo ma garanaysaa wadankeena runtii u hurtay in ay maal geliso oo ay ka baadho shidaal. shirkadda iyo hay'adda wada shaqaynta leeyihiin aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa maanta deeqdan ay wadaan iyo deeqdii hore xilligii Covid-19 ay dadka kale labadaba waa uga mahadnaqaya. ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland oo halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dadaalada ay ugu gurmanayaan dadka ay abaartu saameysay. marxaladan maanta aynu joogno oo guud ahaan gobolka Togdheer iyo gobolka Saraar ay ku bixinayso 891 booyadood ay la gaarayso shirkadda Genel runtii iyo wasaaradda macdanta iyo tamartu iyagoo mar walba iskaashanaya ayaa hawlahani ay yimaadaan oo ay ka qayb qaataan mar walba inay bulshadooda gaarsiiyaan kulay u heshiisiyaan kula jirno oo ay ka mid tahay in dadka community diplomatka ay ka mid tahay in deegaamada ay ka shaqeynayso shirkaddu ay horumariso gaarsiiso waana lagu mahad celinaynaa intii aan gula heshiinay iyo in ka badan ba runtii way sameeyaan. Khalid Bakayle wararka MMTV Bro.